tani waa tuulo aad u yar. tuuladan waxaa ku wada noolaa dad aad u yar oo iswada weji garanaya. waxaa ka mid ah dadkan 3 nin oo iyagu ka tashta xaaladda deegaanka maalin walba kusoo korodha. gabadhan waxa ay la taagan tahay walaalkeed, aabaheed iyo hooyadeed. waxa ay ka cabsanaysaa in jidka lagu dhibaateeyo markii ay alaabta iyo adeegga xaafadda u doonto. waa ay tagtay gabadhii, waa ay socotay si ay u soo adeegto. ka hor intii aysan tegin walaalkeed ayay kala hadashay halista ay wajihi karayso iyo in dhibaato ay jidka kala kulmi karto. walaalkeed wuxuu ku qanciyey wax dhibaataa ma jiro, aabihii iyo hooyadina sidaas oo kale, balse xaafaddu waa ay ka walwalsan yihiin gabadhooda dariiqa ay u dirayaan maadaama uu jiro bahalo iyo horar cuni karaya gabadhaas. kadib waa laga dooday arrintaas. qoysku wuxuu isla gartay in gabadhaas la diro oo adeegto maalin walba. waa ay tagtay, si dhib yar ayay gurigoodii uga soo baxday. hadda waxay u socotaa jidka. gabadhu weli walwal ayaa ka muuqda iyo naxdin. waa ay socotay socodkeedii iyadoo iska wadata. waxa ay aragtay 3 nin oo meel fadhiya. way aragtay, aad bay u naxday. iyaguna way u tashteen intii ay soo socotay, maxaa aynu ka yeelaa gabadhan inta ayna ina soo gaadhin. wuxuu yidhi midkood, gabadha aynu dillo. maya, aynu cabsi gelino. maya, anigaa ra'yi fiican haya. maanta waynu qabanaynaa, markaas baynu go-aan ka gaadhaynaa. muran dheer kadib waxa ay ku murmeen sidii ay gabadha ka yeeli lahaayeen. waa ay istaageen. gabadhiina 3 nin 2 ka mid ayaa gacmaha qabtay. walaaladii ma tihidin miyaa? isii daaya. maxaad ii dhibaysaan? war isii daaya. dad ma jooga miyaa meesha? kani waa 2 nin ninka ay ka amar qaadanayaan. gabadhi iyada oo naxsan bay soo noqotay. waxa ay timid qolkeedii. waxa ayna bilowday inay oydo iyada oo naxsan. aad bay hadda u ooyeysaa. wixii ay ku sameeyeen ayay ka naxsan tahay oo ka murugaysan tahay. walaalkay iyo hooyaday waxaan u sheegay in arrintaas ay jirto. nasiib xumo gabadhii way isdaldashay iyada oo daldalan oo nafteedii xarig qoorta ku dishay. waxaa u yimid horarkii.